محوها مدحوين كحيين كالصومالي حمسة محوها حمسة محو حمسة ورئيس الوزراء رئيس الوزراء محوها حمسة حمسة المقعي يسوي لي أنا ما قرته لكن حمسها هرتا whatever his name is وحو يدي حاجات شوكتين مياد هرودين مياد سوح سنايدين what was wrong with you سيدابا هير كالا قارسية بالفير بالماركي سارتا إلا هالكو كقارسيساني هاي إنكونا waxa la mooday inaynu hurudno shaqada dhan ee ay baarlamaanka Ingiriisku ay noo qabteen inaanaynu maxaa haydin aanaynu ogeyn waxaanu ka qayb galnay in shir 26 June la qabtay oo baarlamaanka Ingiriiska baarlamaanka Ingiriiska Gavin Williamson oo wada taqaanaan iyo maxaa hayd ku xigeenkiisa oo gabadh la yiraahdo Kim Johnson iyo all party parliamentary group waxay sameeyeen book dhan oo la yiraahdo the road map to Somaliland recognition marka waa la soo bandhigay maxaa hayd waa laga hadlay waana sida Somaliland aqoonsigeeda loo raadin lahaa waxa halka ka soo baxday Somaliland horumarka ay martay ay maanta ku taagan tahay iyo Soomaaliya siday u sii laciifaysay u sii daciifayso إن محوها مدحوين كحيين كالصومالي حمسة محوها حمسة ورئيس الوزراء رئيس الوزراء محوها حمسة حمسة المقعي يسوي لي أنا ما قرته لكن حمسها هرتا whatever his name is وحو الله هضلي دد كيسة ويسهين كريواي وحناقي نفتا كبحضي dabeetana wuxuu reer Soomaaliya markaa la hadlay wuxuu yiri xageed joogteen reer Ingiriis xageed joogteen markaa baarlamaanka Ingiriiska lagaga hadlayay lagu amaanayay lagu soo bandhigayay buuga la doonayo talaabooyinka lagu aqoonsado road mapkiisa miyad hurudeen miyad suuxsanaydeen what was wrong with you سيدابا هير كالا قارسية بالفير بالماركي سارتا إلا هالكو كقارسيساني هاي إنكونا waxa la mooday inaynu hurudno shaqada dhan ee ay baarlamaanka Ingiriisku ay noo qabteen inaanaynu maxaa haydin aanaynu ogeyn waxay ahayd inaynu hadaynu reer Somaliland nahay aynu maxaa hayd meel walba ka hadalno aynu ka boorino aynu mahadnaq u dirno aynu maxaa haydin meel aad u sareysa aynu gaarsiino marka waxa weeyaan Soomaaliyana talaabada yar ee aynu ku kordhino bay doonayaan inay dhulka ku dhuftaan innakuna waxaynu garan la'nahay talaabooyinka quruxda badan ee wanaagsan ee horumarka leh ee aynu gaadhnay sidii aynu u soo bandhigi lahayn innakoo gacmaha haysana inaynu maxaa hayd aynu soo bandhigno marka waxa weeyaan meelaha aynu baahanahay qurba jooga ama diasporada inuu maxaa hayd wadan kasta oo ay joogaan ay maxaa hayd ay shaqooyinka ay ka qayb galaan diasporaduna mid bay maanta ay aad iyo ugu fiican tahay waxay leedahay dhalinyaro wadankooda ku barbaaray maxaa hayd wax ku bartay jaamacada ka soo baxay PhD holders research samayn karaya galay xitaa dawladda ay markaa wadanka ay joogan dawladdiisii oo MP ama xildhibaan inaynu dadkeena aynu maxaa hayd diasporada maxaa hayd sida awake oo soo jeeda inaynu dawlad ahaan iyo dad ahaanba aynu garab istaagno boorino aynu maxaa kor u qaadna magacooda iyo sharaftooda kor u qaadno aynu tusnana Somaliland waxa weeyaan a part of their identity it is their legacy it is who they are without Somaliland ma noqonaysid qof dhammaystiran